هوين بان هذي ما بيرين فوق يبور على يدو البولا هرو مركين يقوي هوبال اركي نبادين وشوق لا أنتود لما هلين mid waxa weeyaan kulan aqoon isweydaarsi ama in isweydaarsanayno sharing experience iyo khibradihii ay qolyaha inoo joogay maanta martida inoo ahayd dawlad deegaanka inooga socday inaguna aynu la wadaagi doono caqabadihii iyo dhibaatooyinkii inagala soo kulmay xilligii doorashada in kulan waxaan filayaa in kulankan noqon doono kulan aynu in badan wax badan kala faa'iidno marka laga yimaado isbarasho in khibradna aynu insha Allah aynu halkan ku wadaagi doono ujeedada aynu kala leenahay kulankani waxa weeyaan saddex arrimood oo ugu waaweyn qodobka koobaad waxa weeyaan bal inaynu dib u eegno caqabadihii iyo dhibaatooyinkii kala kulmeen haweenku doorashadii ka dhacday Soomaaliland 13 May iyo tii ka dhacday dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dhawaan ka dhacday inay iska wareysataan oo macna information sharing la sameeyo qodobka labaad waxa weeyaan in xog ka helo election process-ka marka laga hadlayo macnaha laga warramayo process-ka election-ku sidee buu u dhacaa haday noqoto dhinaca sharciyada haday noqoto dhinaca campaign-ka haday noqoto dhinaca marka halka waxaad ka dareemi kartaa in haweenku ka fahmi karaan maxaa ka qaldamay waqtigii doorashada lagu jiray maxaa ka qaldamay maxay u baahan yihiin inay dib u socod ku sameeyaan iyo ugu dambeynta doonayno hadii Ilaahay yiraahdo inaynu communicate ama qoraal warbixin rasmi ka soo saarno kulankiina maanta 4 saacadood ama 5 saacadood wixii ka soo baxay inaynu communicate ka soo saarno hadii Ilaahay yiraahdo runtii qolada reer Soomaaliland waa ka warhayaan wixii haweenka Soomaaliland waqtigii doorashada caqabadii ugu waaweyn ay koriyimi laakiin haddaan waxoogaa yar guud maro waliba qoladii dawlad deegaanka Soomaalida u yar guud maro dhibaatooyinku waa iska badan yihiin oo kolley waxa jira caqabada halkan taala jigjigana way taala Afrikana way taala oo inta badan waxa sababa caqabadaha haweenka ka hor yimaada dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo waa arrimaha dhaqanka ama culture-ka waxa la yiraahdo ayaa sabab weyn u ah marka kolley ma hade in la niyadjabo oo trialku ama isku daygu waxa yiraahdaan waa wax wanaagsan oo maanta haddaad wax isku daydo dhacdo bari dhacdo haddana saa dambe dhacdo maalmaha kamida waad istaagaysaa definitely waa shurtaas maalmaha kamida waad gaaraysaa himiladaada iyo halkaad higsanayso runtii wax badan baa laga hadlaa doorashadii dalka ka dhacday in haweenkuna ay maanta waxa ka nasiib wanaagino maayar qadiija oo ka socota muxuu ahaa degmada Buuhoodle Sooba ka maayar ayay nala joogtaa oo dumarkii guuleystay saddex kamid ahaa ay maayar qadiija kamid ahayd muxuu ahaa waan rajaynayaa in doorashooyinka dambe ama doorashooyinka soo socda in ay la golaha wakiilada iyo shirgudoonka golaha wakiilada ha gaari doontaan haddii aad dadaashaan waxaan iminkana ku soo dhaweyn doonaa Nafiise Nagaad Network waagaasimaha iyada kuleen ina siin doonto ugu horeyn waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh madashan quruxda badan ee nagu kulmiyay waxa aan runtii u mahad celinayaa dallada Soonsaf iyo shaqaalaheeda hawshan isku soo dubariday waxa kale oo u mahad celinayaa marti sharafka kale ka soo qayb gashay waxaanan salaamayaa una hambaliyeynayaa hablaha dawlad deegaanka Soomaalida runtii xilalkii ay u tartameen ku guuleystay waxaanan leenahay insha Allah Ilaahay ha idinku asturo haweenku meel kastoo ay joogaanba haween wada Soomaaliyeed baynu nahay meel kastoo ay joogaanba caqabadaha runtii la kulmeeyay kuwii halkan nagala kulmeeyay oo kale bay ahaayeen caqabadaha hablaha ka soo gudbay waxaan leenahay insha Allah sidaa u soo gudubteen insha Allah Ilaahay idinkiisa ayaydan u sii socon doontaan ilaa aynu ka gaarayno mansabyada aynu doonayno runtii sidaa uu Anwar sheegay muddadii 12 sano ugu dambeeyay Nagaad waxay ka shaqeynaysay
bal sidii haweenku u heli lahaayeen mansabyo talada dalka iyo go'aamadeeda looga qayb qaato sababtoo ah maadaama dumar iyo caruur aanu ka mas-uulnahay baahiyaha iyo dhibaatooyinka jira iyay leeyihiin haweenku waxa kaliya lagu ogaan karaa uun marka miiska wadatashiga la joogo ayuunbay runtii baahiyahaas dabooli karaan sababaha ay markaa aanu u doonayno inay dumarkii talada ka qayb galaan in badan baan waxaan u cararaynay in kooto dumarka loo helo 2 jeeroo doorasho tu deegaan iyo tii baarlamaanka lagu jiray labadaba kootadii dumarka waa laga saaray oo meelaha aanu islahayn halkaasay maxay hayday dumarku maadaama aanay sidii kale tartanka ku soo baxayn ay wax ku noqon lahaayeen xaqiiqatan 2 jeerba way suuro gali weyday golihii deegaanka ee la dooranayay 2012kii dumar ilaa 40 baa u cararayay oo aanu kala shaqaynaynay arrimaha haweenka iyo sidii ay tartanka ugu guuleysan lahaayeen 10 dumaraa barigaa ku soo baxay mar labaad tartankii dambe aad bay dumarkii tartamayay u badnaayeen 28 dumara ayaa markii dambe musharaxiintii xaasilkii isku soo hadhay 13 golaha muxuu ahaayay baarlamaanka u cararayay iyo 15 u cararayay golaha deegaanka oo sidaa imika laga dhawaajiyay ay 3 kaliya guuleysteen oo khadiiji maayarad tahay runtii caqabaduhu inta badan dhaqanka ayay isugu soo urureen iyo xagga dhaqaalaha taa dhaqanka waxaanu rajaynaynaa maadaama intiinaasoo hablooda soo baxay deegaankii Soomaalida ka soo baxay caqabadaha dhaqanka oo ah lambar 1 waxyaabaha dumarku hortaagan in maanta madashan aynu ku kulannay runtii wax badan la kala faa'iideysan doono maadaama ay halkan fadhiyaan hablihii ku jiray xisbiyada oo kolley weli qaarkood u taagan yihiin inay doorashooyinka dambe ka qayb galaan hablihii iyaga laftarkoodu tartamayay marka kolley khibradaasi waxay noqon doontaa mid wax ku oolo oo la kala faa'iideysto madashan maanta la joogo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bay idinku soo dhaweynaynaa Somaliland waxa kaloon idinku soo dhaweynaynaa xafiiska iyaga iyo waxqabadka iyaga insha Allah maalmaha joogtaan inaanu anaguna aanu idin marti gelin doono runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaan wax badan kala faa'iideysan doono insha Allah maanta intaan joogno isla share gareyn doono ama isla wadaagi doono inaan kooto la sameeyo dabadeetana in badan u yaa cararay sidii bal dumarku kooto iyo qoonda gaara ay ku soo bixeen laakiin nasiib darro iyaduna waxay noqotay mid aan lagu guuleysan oo aan laga gaarin guul intii la waday hadda waxaan u yeeri doonaa Khadra maayo 30 sanadood ee ugu dambeysay waxaan ku soo jirnay sidii haweenku meel u gaari lahaayeen aan bay uga mid noqon lahaayeen ka qayb qaadashada talada dalka nasiib wanaag maanta waxaan oran karaa meel fiican baanu maraynaa sababtoo ah maray koota noqotay mar la iskaba cararayay mar la isla soo sharaxay mar la riixay albaabka gabadha la maxay soo doonaysaa marxalada kala duwan baa la soo maray laakiin tii ugu darayday imika ugu wanaagsaneed anagu oran kara waaba la tareegaray waxa weeye xaqi qabiilka ka ugu darana oo haweenka bridge-ka hor taagana ayaa horta la tareegareeyo inkastoo aan isla run kama yahayn waxay ahayn bal aynu iska dheh oo haday run tahay way soo saari lahayn inanta haddana waxay noqotay caqabad runtii la jabiyay oo imka lagu dhiirin karo oo waxaanu imka xooga saarayna halkeenu kootada iyo wacyigelintii waxa ka saar lahayn inaanu xagga reeraha in la maxay hitay la mabaleeskareeyo oo la yiraahdo inantan iyay ka timid anigu reerkaan u dhaxay inankaygu yahay ima ogola inaan soo sharaxo sababtoo ah dumaashigayna ima ogola waa laga yaabaa in yaroonu de saaxiibnahay oo asxaabnahay inay maxay hitay ogolaadaan laakiin markay noqoto inaan burcayo taga ceerigaawo oo maxay hitay inankayga ka soo jeedo ii ogolaan maayaan waxay waa gabar galbeed ka timid runtii laakiin waa laga yaabaa inaan de colleagues iyo xoogaa de inama iyo habla iyo rag iyo xoogaa aan saaxiibnahay ay maxay haytay Maryano muddo dheer runtii halka waan salaamaya Maryano aad baan ku salaamaya bariyaas meeynaan arag Maryano malaha imika intii la aas-aasay haweenka hawlahooda aan ku soo wada jirnayo oo daway ceergaaba halka uga iman jirtay haweenka hawlaheeda oo kala de laga yaabo in taa war khadre weeyaan waa tanaya laakiin markay noqoto qabiil inaan waliba waa in reerkii ay ka timid waa in ku aroortaan
marka aanu waxa ma leeyahay xagga reeraha iyo odayaasha aynu xooga saarno imika waxaan u yeeri doonaa ayaan cabdalle ayaan waxay ka tirsan tahay hablaha martida inoo amaanta dowlad deegaanka jaarkeena inoo ku sii dheeraanaynin wax yar haddaan ka taabto women's political participation oo aad haddaynu Soomaalinahay haddaynu African nahay meel walba joognaba inoogu yar waxa anaga na lagu xantaa ama la yiraahdaaba si cad xilligii Cabdi Maxamuud Cabdi Ilay ayaa ay dumarku u badnaayeen ama maamul ha ahaato ama parliamentarian ha ahaato ama ha ahaato laakiin istadhigii la sameeyay 2020kii waxay noqotay tiro bilaataya ah tiro aan tayo lahayn oo Cabdi rabay inuu dumarka wuxuu doono dhanka fushado oo siyaasad haday tahay dhaqaalaha haday tahay la yiri dumarka waxba ma cunaan waa masaakiin raggu in kuusan bay fujiyaan dumarku way yar fagtaan sida jiirka arrimahaas oo kale wa alaykum assalaam wa rahmatullah arrimahaas oo kale ayay ahayd wixii dumarku markii dambe waxay gaadheen heer ay ka baqaan inay siyaasadii galaan sababtoo ah qalad baa laga fahmay dumarkii marka cabsi baa timi cabsidii markay timi istadiyadii la sameeyay rag badan baa diiday may anaga xilligii Cabdi gabdhaha iyaga waa la qaadi jiray qasab baa laga dhigi jiray wixii la doonaa laga fushan jiray anaga gabadhaydu ma noqonayso ay hablihi xagga dambe marsadeen oo inankiyo waxba baran iyo inantii wax baratay leeyahay inantii wax baratay qaadanina inanka qaata marka caqabadihii iyo istadhigii laga sameeyay discussion point kan inoogu dhigaya insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay ayaan hadda waxaan ku soo dhaweynay Sahra oo iyaduna hablaha inoo martida ah ama ka socday dowlad deegaanka aad baan u faraxsanahay maanta ee ku sugan yahay magaalada Hargeysa oo dadkeygii oo ka dhashaan dhex taaganahay waxaan u mahadnaqayaa hay'adan SOS oo nasoo abaabushay oo madashan ugu boqorux badan ee la soo keentay Hargeysa mar labaad waxaan ka bilaabayaa horta inaan u dhashay deegaanka Soomaalida oo ka socda xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta oo deegaanka Soomaalida ta kale waxa weeyaan aan ka bilaabayo siyaasadda markaan raahno dalka dargigii wuxuu haysan jiray oo 17 sano oo aan ahaan waxaan ku dhashay deegaanka Oromia oo waagii deegaankii Oromia ay tahay inay noqoto deegaanka Oromia inaan maadaama aan deegaan aan kala leeyahay dargigii hal meel nagu maamuli jiray oo Itoobiya oo dhan maamuli jiray taas inay noqoto inaan Soomaalinimadeena aan muujinin marka dargigii markii ay PDRF 17 sano halgameen ay ka soo baxeen waxay noqotay inay ay helno deegaan Soomaali ah ku magacabsan oo luqadeena isticmaali karno afkeena ku hadli karno oo shacab kala duwan oo dhan ay helaan xor inay ku noqdaan Itoobiya oo dhan marka taas ay laga bilaabay maadaama ay inta ugu badan ee guumeysigii ay nahaysan jiray oo luqadeeni iyo afkeeni iyo Soomaalinimadeeni uu laga baabiin jiray laakiin markii PDRF ay timid inay helno luqadeeni aan ku hadallo Soomaalinimadeeni aan muujino ee deegaan aan haysan kadibna PDRF-na markay dhacday waxay noqotay xisbiga hadda ma talada hayo xisbiga barwaaqo waxay noqotay dhibaatada ay jirto ay haweenka inay gaadho taas waxa keentay inay dhibaatada haweenka ay gaadho waxay ahayd markii ay bilowgii 3 bilood ay qalasaasi dhacay maadaama ay doorashadii aanan ka dhicin ee deegaanka iyo dalkaba waxay noqotay inay isjiid yar uu ka dhaco oo haweenkina meeli la rabo aan la gaarsiinin marka in yar sanad iyo 2 sano oo kadib uu helay heer dal ahaan 50% inuu ku dhawaaqay inay haweenku ka qayb qaataan meelal ugu sareeyo ee dawladnimo marka waxa keentay in deegaan walba ay halgan ay bilowdo oo gabdhuhu inay siyaasadood ay ka helaan qaybtooda markaste waxaan aan ku guuleysanay sanadkan doorashada 6aad oo ka dhacay dalka iyo deegaanka Soomaalidaba si fiican baan ugu guuleysanay haddaan nahay haweenka deegaanka Soomaalida waxaan ugu guuleysanay qabiilku horta saad sheegteen weeyaan meel kasta bay u jirtaa qabiilku inta ugu badan waxa weeyaan gabdhaha firfircoon waagi ee sida ayaan ay ka dhawaaqisay oo Cabdi oo kale oo keenay haween fara badan
laakiin taya inuu u baahan tahayna meesha ay ka muuqato inaan ku ceeboobno haweenku waxba ma qabsan karaan meelna ma gaari karaan aynan ku ay ragga taya aanan lahayn way jireen laakiin inta ugu badan waxaa la arkayay haweenkeeni inaan taya aanan lahayn taasoo keentay hadda ee siyaasadda ee isbedelku markuu dhacay inaan la halgano dawladda ku soo dhaweynayaa Maaya Khadiija oo islahayn ha idin furto waxaan idin sheegayaa horta dadaalka ay nagu sameynayno caqabaduhu barta ay naga yimaadaan dawladdu wayna taageertay hay'aduhu wayna taageereen runtii aad baa wax nolola qabtay laakiin xagee caqabada gabdhuhu ka dhaceen ay ku timi waxay ka timi guryahayaga qoysaskii oo yiri gabadhii aday madax banaanta ay u galaysaa iyo wiilii shaqeeyna gabadha hay shaqeyso waa nasiib darrada hablaha reebta laakiin ka hadhi mayno waxay la tahay gabadh walba caqabad way soo martay tay soo martay cid ma soo marin xataa xisbiyada loo tago waxa lagu yiri gabadha ma rabno xataa waxa loo tagay shacabka ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofku dooro un baa dooran horta dadkii iyo shacabkii waan ka qabsaday laakiin dadaalka oo taasoo jirtay wiil baa la barbar dhigay wiilka runtii xataa iska daa wax kale magta reerka waan la bixin jiray qaaraanka waan bixin jiray isagu wiil yar wax soo bartay waa xuuma bixin jirin haddana waa la eegi waa waxa la yiri hadhow gelaysaa yeesa tahay caruurteedu inta kaliya baa la eega marka had iyo jeer gabdhaha waxa reeba waa reerka waxaan ku boorin lahaa odayada reerka magaha iyo waxa uu qaada la xiriira waayo meelaha la inaga soo gelayo waa meelaha la inaga soo galay caaqilada iyo odayaasha iyo aynu ku dhawaano dadaal dheerna aynu sameeyno runtii haweenka iyo maxay tahay raggu isku mid maaha hadda degmadayadii wax badan oo aysan fahansaneen bay fahmeen waxay ogaadeen in rag badan oo u shaqeyn jiray ilaa iyo maalintii Jamhuuriyadda Soomaaliland waa laga shaqeynayay maayriga horeeyay bulshada taqaaneen ma jiro intuu meel isu soo taago mid bulshada wuxuu sheegaan ma jirin mid walba intuu tago meel iska fadhiisto buu lacagtiisa qaadan jiray bulshadan ka aqoon dadka maxay tahay maayrada haddana waxay ogaadeen inay gabdhuhu ka fiican yihiin oo wax badan kaga fiican degmooyin aan isu gali jirin baan anagu u galaa waan iska dhex maraa waan tagaa waayo cidina waxay ku sameeyso gabadh baan Soomaaliyeed raggii way kala baqayaan dabadna waxa la ogaaday inay haweenku isu furi karaan bulshada hadda waxaan wadaa gobolkaygu aad buu xasaasi badan yahay aad ogtiin mooyee waa gobol caqabado badan oo maxay haytay juulo oo dagaali ay maxay tahay soo fool saareen ama dad badan ay ka faa'iideysteen oo ay isku dhirbaaxayaan taa darteed hadda waxaan wadaa inaan bulshadii isdhexgal fara badan u sameeyo inaan reeri isu soo jiido inaan ballamo u qabto inaan heshiisiyo waxaan media wad ka daawanaysan anigoo 98 geel mag aan wareejinayo oo aan ku guuleystay wax kuwa badan oo maxay tahay tuuma kala qaban aan wada dhaariyay oo maxay tahay aan isu keenay oo ay ku wada kala qanceen intii kale aan isu balamiyo nabadii aan aad waxa aan ugu shaqeynaya horta waa nabadda waayo gobolkii baa nabad darro ka jirta horumarna waxa lagu gaaray iyadoo nabad la helo marka waxaan focus ka saaray inaan nabadgelyada ka shaqeeyo marka aad iyo aad waxaan idinku boorinayaa inaynu wax kasta oo inaga hor yimaadana aynu u dhabar adeegno dadaalkeena hadaynu dhacno oo kufno oo kacno mar unbaan iska kacaynaa inantaa inoogu jirta tiri waxaan gelayaa dhaqankana walaahi waa kelmad la soo dhaweeyo inaan runtii inantaa garab istaagno oo aynu kashano aniga way igu yiraahdeen de bardhow waxaad u soo socotaa caaqilada iyo degaraadada qaarna waxay bay yiraahdeen xagee lagu arkay bay yiraahdeen dal dumar hogaamiyo qoonka dumar hogaamiyo way halaagmaan wax yar waxa iska soo qaadanayaan basiida runtii haweenka waxa la oran karaa waa madaxweynaha guriga ama waa maxay tahay bulshadaba laf dhabarteeda waxaan ku soo dhaweyn doonaa Maryan oo waxay ka tirsan tahay xisbiga wadani soo dhawo Maryan alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle marka hore halkan ilaahay isugu keenay ilaahay baa mahadle marka ugu horeysa waxaan maaragtay waxaan salaamayaa oo soo dhaweyn miisaan iyo mugle oo reer Soomaaliland oo dhan ka socota waxaan maaragtay ku salaamayaa hablaha ka socda deegaanka Soomaalida ee maaragtay Itoobiya aad iyo aad baan idin salaamay waxaan xoog ugu faraxsanahay inaan maaragtay maanta aanu idinkoo madax ah inaanu idin aragno ayaan xoog ugu faraxsanahay waxaan kaloo salaamayaa hay'adda Sansof oo iyaduna de maaragtay kulanka ballaadan ee ah inaynu maaragtay wixii caqabadihii iyo maaragtay de inay inala wadaagaan wixii maaragtay inaga dhexdeena ah ayaan horta aad iyo aad iyagana u salaamayaa runtii waxaan kaloo salaamayaa maaragtay organizationka weyn ee nagaad runtii muddo dheer ayay nagaad ku soo dhex jirtay inay haweenka halkan soo gaarsiiso haweenku halkan iskama iman dagaal badan ayay ku yimaadeen xaqiiqatan marka xaqiiqada iyo runta laga hadlayo hawl fara badan iyo waqti badan bay geliyeen runtii hablo badan oo madax ka ahaana
dee wasiirayba noqdeen somaliland oo dee qaarkood maaragtay dowladdii siilaan iyo wasiiray ka noqdeen dowladdan kale maaragtay muuse bixina wasiiray ka noqdeen runtii inta badanba waxay ka soo baxeen organisationada ayaa hablahaasi ka soo baxeen run ahaantii waxaan kaloo aad u salaamayaa maxay teen dee 3 xisbi qaran haweenkoodii oo halkan jooga hablahoodii madaxda ahaana way joogaan gudoomiyihii xisbiga kulmiye sahra ayaa inala fadhida xogayii arrimaha bulshada ee xisbiga u cidna way inala fadhidaa maxay hayteen nayraas yaanan sheegin kale inkasta aan hadliyay ku tahay laakiin waa magaceedii de caadiga ahaa ma hadliya maxay teen anigu de waxaan moodayay naynaasi laakiin waa magaceeda caadiga ee famoska ay dadku wada yaqaan iyadana aad baan u salaamaya runtii waxaan la ilaawi karin oo maanta halka inala fadhida oo maaragtay de maayarad baynu maanta anaga Soomaaliland hadaan nahay gabadh maayarada ayaa halka noo fadhida oo maanta dee shirka inagala soo qaybshay iyadana waxaan leeyahay aad baan u salaamaya dhammaan intiina kale ee bahda miidiyaana aad baan u salaamaya run ahaantii waxaan doonayaa inaan anigu guud ahaan iyo gaar ahaanba inaan wax yar ka hadalno runtii maanta halka waxaynu u fadhinaa inaynu ka hadalno bal caqabadihii reer Somaliland markii ay doorashada galeen hablihii wixii soo wajahay ee ka hor yimid ee fiiskareeyay iyo hablihii deegaanka Soomaalida wixii ay ku soo baxeen ee ay ku guuleysteen ana waxaan isleeyahay idinka mala caqabadiin waaba yaraydba hadaba tirada la sheegayo 79 iyo maxay hayteen tii kale ee xagga ahayd maaragtay xagga sare ahayd heer federaal ahayd aad 8 ku yeelateen dawad guuleysatay waxa idinku naga dheertihiin inaan annaga idin la wadaagno annaga waxaanu experience u leenahay iyo khibrad inaan nala wadaagtaan runtii maaragtay wax fara badan baa de Soomaaliland ka jira deegaankana idinkuna wax fara badan baa idin soo maray laakiin wax badan waa jiideen waxaana ku jiideen dawladdiina oo ah dawlad guun ah xaqiiqa marka la eego maxay teen annagana inta noo hadhay waanu jiidi doonaa dad bisil baanu nahay inta hogaamiyayaasha noo noqotaana role model baanu ku diyaarnaa inaanu noqono inaanu dadkayga jiidnaanu u diyaarnahay inaanu xisbiyadayada dhexdeeda aanu xoogga saarno ayaanu u diyaarnay si hablo uga soo baxaan aad iyo aad baan idin salaamay inta isweydaarsano maryan iyadu waxay ka tirsantay waa 3 xisbi midna waa muxaafid labana waa mucaarid waxay ka keenaan iyaguna ay haweenka insha Allah bal halkay gaarsiiyaan inkastoo rajadu marka koowaad ay ka bilaabantay xisbiga halka ay xisbiga habluhu ay kaga soo jiraan marka jiro hadhow toolana executive-kii iyo xubnihii kale aynu u baahnayn kulliin in badan aynu ka hooseynayna sidaynu xisbiyadu hadda aynu ku nahay baa ayaa muhiim ah aad bay u mahadsan tahay maryan hadda waxaan u yeeri doonaa hadliya waxaan ka tirsanahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud waana maaskiisii sita waxaan ahay madaxda xisbiga waxaan ahay xoghayaha ururada bulshada iyo xiriirka samafalka halkan gudoomiyadii baa maqan oo kelmadeedii mahadnaqa ayaan ka jeedinayaa mar haddaan anigu badee xoghayahay aad iyo aad baan idin salaamayaa mar labaad waxaan idinku salaamayaa magaca haweenweynaha Somaliland iyo magaca haweenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo aan idin leeyahay soo dhawaada si fiican waynu u kulmi doonaa waanu idin marti gelin doonaa insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinayaa waxaan leeyahay dhammaantiin horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxbaynu kala kororsan doonaa anigu maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay farxadayda lama soo koobi karo waxaan leeyahay kelmadaan leeyahay waxa weeye geel kala fogaadiyo gacalba way isku soo ololaan waxaanu nahay laba dawladood oo walaala dadkoogu walaala yahay waxay noo kala dhaxayso xidhiidh insha Allah anigu waxaan ka tirsanaa hablihii golaha deegaanka ee iska sharaxay waxaan iska sharaxay gobolka Togdheer maayir Togdheer aan u sharaxnaa nasiib wanaag maan helin waan sii wadaya oo ka hari maayo waanan gaari doonaa jabin doonaa aad iyo aad baan idin salaamaya mar labaad baa waxaan jecelahay inaad nala joogtaan waan idin soo dhaweynayaa waxaan idin leeyahay soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu de waxaan u malaynayaa waxaynu kala kororsan doonaa aqoon kororsi maadaama intaas soo hablood oo soo baxay maanta taagan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay insha Allah aqoontiina iyo khibradiina waan u baahanahay hadii aan nahay gudoomiyaha xisbiga heer qaran ee kulmiye waxaan idinku soo dhaweynaynaa xisbi ahaan waad noo casuumantiin insha Allah
somalilan ahaan waad noo casuban tihiin labada xisbi ee kalena ana afkooda ku hadlaya insha Allah bismillaahi karim wadin casumi doonaan maadaama aad somalilan joogta sidaas ugu duubantiin maan isugu duubanahay siyaasaddu waa halkeeda laakiin mid ayaanu nahay maadaama aad somalilan tihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay umahadsan tahay Sahra waxay ka tirsan tahay xisbiga muxaafidka ama xisbiga imika talada dalka haya waana gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulley wax badan bay inala wadaagi doontaa insha Allah marka dambe aynu sessionkeena isugu soo noqonayno halkaas aynu ka sii socon doonaa imikana waxaan u yeeri doonaa Faadima Amran oo iyaduna ka tirsanayd hablihii sharaxnaa ee maxaan ku dhahdaaye aan ku guuleysanin waqtigii doorashada sharaxadii gobolka saaxil hablihii sharaxnaa baan kamid ahaa nasiib wanaag damay dhicin laakiin we have learned a lesson waxaan baranay wax baan ka baranay waa halka hadliyaan ku raacsanahay waan sii soconayaa waxa weyn hadii dawladkuna ii daayo aqalkii caafimaadkana ilaahay ii daayo wax baan bartay mar horta go'aan adag baan qaatay page baan leeyahay musharax Amran Bila Ali page-kayga ay argareeya siyaasadda isku wadaarsano dadka igu soo gura anu halgankayga maanta aan bilaabay berigi hore ku soo booday ahaydun ma ogtahay waayo wax kasta the time bay u baahan tahay marka taasi waa kaftankii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyeynaya hablaha maanta halka ku soo baxay farxadeeda runtii lama koobin maalintii natiijada la soo saaray dawlad deegaankeena waxaan leeyahay annaguna waa nagas roogaano noqon doona insha Allah laakiin waxaan rajaynayaa hadal inantaas ka dhawaajisay ayaa anagana nagu jiray especially hablaha 13 ka ee baarlamaanka u sharaxna oo aanu ka shirayna oo aanu jecelay sansaf inay nagala shaqeyso oo inagaad bay nagala shaqeysay oo hadiya jeer anagaadna nagala shaqeyso hadii haweenka la categorize gareeyo oo haweenka professionalska ah horta balayso keeno haweenka kale kuwa businesska kuwa grassrootka ku iyaga halkaas ay sheekadu ka sii soconaysa marka tabaabasho la'aan baan haysatay laakiin insha Allah from now on waxaan doonaynaa inaan tabaabasho adag sameeyno waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aanu haysano dalad aad u adag oo la yiraahdo nagaad oo aan waxba nagala hadhin inaanu haysano dalada Sansaf oo hiiliyahooba nala garab taagnayd in kastoo Sansafta ay wax badan oo nala yiri milyan la idisiyo taasina ay caqabad nagu keentay waxa kale aanu haysanaa hablaha xisbiga qaranka ku jira oo aad ay daacad ka go'an tahay inan kasto xisbi ku jirta maskabka ay hayso kasta inay soo baxdo aad ban hablii xisbiyada ugu faraxsanahay waxa weeyaan ragga naga yara talaabo dheereeyay hablaha naga xaday hablahana maadaama aanu iskaashiga bilaabi doono faramnaa oo ka bilaabi doono annagoo hablaha iyaga daladaha la shaqeyn doona inay professionals isku yimaadaan hablaha kale isku waxa laga yaabaa 5 sano soo socda inaan wax badan isbedeli doonaan idinkana waxaan diin rajaynayaa waxa weeyaan in role model iskaygi baatiine aynu wax isweydaarsano seminaarada aynu isweydaarsano ilaahay waxaan ka rajaynayaa gabadhu waxbay tiraan anigu waxaan u leeyahay marka danaga 5 years waan taagani wallahi waxa isla waxbaad mala qaban lahayd kugu duuganaha la dhiman tiga waxa la yiraahdaa hablaha Soomaaliland markay sharaxayeen ama ay ahaayeen ololaha ay ku jireen inay media oo kale ama social media meelaha laga soo baxay in lagu yara waxaan xasuustaa anigu Faadima Amran hal barnaamij oo ay duubtay baan habeenka aan daawanayay imika hadii la weydiiyo si fiigeeda oo dhan waan akhriyi karaa moogti marka waxa weeyaan waxyaalaha uu qofku hal barnaamij oo aan ka daawaday bay ahayd oo markan berberaan ka shaqeynaysan ku Faadima Amran meeday moogti marka eeg waad xasuusanaysaa waxyaalaha inaga dhinaa ayay ahayd invisibility-gu aanay qabiil la ahayn wax kale aanay ahayn in qofka la barto ama visibility-gi qofkani uu lahaa uu muuqdo ay tahay waxyaalaha ugu badan imka markay soo kacday baan gartay Faadimo kulay waqtiga ina sii guraya waris dhoobaale ayaan ku soo dhaweynayaa iyaduna kamid ahayd haweenkii aadka u dadaalay ee aan filaynay inay soo baxeen balse aan soo leeyimay soo bixin waris waxay kamid ahaa haweenkii inta badan dadaalay ee la filayay inay soo baxeen waa anagu inay soo baxday baanu aaminsanayn imikana anu waxaan ahay waris sancige ama waris dhoobaale waxaan ahay gabadhii shabeelka ee intii doorashadu socotay adduunka wareerisay haddana dumarka half and half dharka shabeelka ay wada xidheen hadday yihiin gudaha iyo hadday yihiin dibadda hablaha Faransiiska igala socda marka sideen dharkii waxaan ka weynay meelo badan laakiin gabadh baan u diraynaa Faransiiska inay dharkii oo lagu sheegay ka soo qaado oo intay wada xidhaan ay ii soo hambalyeynayeen
waxaan ahay dumarkii dhacay gabadhii loogu dambeeyey cunay ee minitiskii ugu dambeeyey waxaan seexday anigoo soo baxay waxaan soo toosay iyadoo layga saaray liiskaygii wuxuu isku bedelay hab aanan ka sheekayn karin weliba aniga gaar ahaan kama xumi sababtoo ah dee waxaan ku bartay dad badan hadday tahay xisaabta hadday tahay ma garanaysaa dawladda waxaan ahay gabadhaas darsi ragiilaa siday cidhbaa u tiri lahaayeen marba demi baan ka baxayay markaan wada dhameeyeen seexdayna kii ugu dambeeyey jareen markaa waxbaanu baranay kama xumin mar haddii sharaf weyn baanu ayaa horta aniga waan tirsadaa mar haddii meel walba markaan suuqa tago waa gabadhii soo baxday waa gabadhay waxa ku sameeyeen waa yacni dadkii baa ka marakacay waxaan aad u salaamayaan xasuustaa wariyayaasha haddii nablaha iyo inamadaba wallaahi qasman billah يعني minitiska ugu dambeysay ambaliyada ugu badan wariyaasha ahayd waayo goobtii commissionkay taagnaayeen ya marka aad iyo aad baan u xasuustaa waxaan gabadh dhalinyar badan ay carartay oo ay u odaysay oo dhan walba iska taageen oo odayadeedu aan reerku cid kaleba soo sharxin oo ay socdeen waxaan ay gabadh haweenka Soomaaliland dhex u ah ilaa maalintii siyaasadda Soomaaliland la bilaabay waxaan ahaa gabadh daadiisa oo ku xiran yihiin dad badan laakiin مسلم بيننا هايو قدرك الله بناميننا ويحين حدا لا قرين ما دعيسو مركا قدر كان كسمرسن هاي dad badan oo halkan joogana waan u hambalyeynaya hablahan oo jeclayna bartooda u tagno oo ku soo fooladayno oo iyagu noo yimidna qalbiga ayaan ka salaamaya waan idin jecelahay waxa kale oo idin leeyahay waa run garab istaaga dhalinyarada aad baan ugu qoslayay waris waayo bahdeeda saxaafadda warinteeda aad bay ugu xidhantay waris oo lama oranayo iyada lafteeda wacyigelinta marka laga hadlayo ama dadkii campaign gareysanayay bay ku yareed waxay ka mid ahayd waris hablihii ugu dadaalka badnaa midna waanu sheegayaa marka laga hadlayo saxaafadda inay xoog leedahay baanu sheegayaa dadka oo dumarka musharaxiintii aad ma isticmaalaynin saxaafadda waliba saxaafaddu iskuma jirtee waxaan u malaynayaa way maqan tahay nagaad way kacday olole weyn bay u gashayna habluhu soo baxaan waxay u samaysay inan kastoo musharaxada inta train la galaba wax loo sameeyay bayjay iyadu leeday oo waxeeda ku guratay ku ololeyso waxaan ka marxaati kacayaa hablahaasi bayjajkii badi kow iyo laba mooyaane iyadoo waliba inan walba inan iyo inan loo sameeyay inaanay fulin oo aanay isticmaalin bayjajkii marka waxaan leeyahay xitaa hadalku wuxuu ka xoog weeyay marmar codka marka hadalkana aynu ku xoog yeelano hadalka waa soo gaabinay waxa la yiri goor gaaban hadalkeedna gaabane aad baan idin soo dhaweynaynaa waan idin jecelay soo dhawaadna baan idin leenahay hablaha iyo hanka qaranka hablaha hiil haweeney hanka qaranku waxay ahaayeen hablihii kala soo shaqaystay 20kii hablood ee musharaxiinta Soomaaliland ahaa labada goloba inay caawiyaan nasiib wanaag noomay suurtagelin marka laga reebo 3 hablood ee ka soo baxay golaha deegaanka mooyaane hablihii aanu u jeclayn ee labeenta ahaa ee aanu doonaynay in golaha baarlamaanka ka muuqda way noo suurtageli weyday بإذن الله هيجنكي يهلجنكي أنو كتير مرنا بكما هرينو قاب كستوا أي هوينك سومالي لأن وجب هاي هي اللي هو وانقرب تاجن هاي إن ما أنت ما درش نوحي سوق كتير سودوين فرحات يدعو أنكو سودوين إنه مرتدا قيمها يشرفت يكرامه هون إنه جاي مديك ولا ديجان كين إثيوبيا وحلينا يسودو هذا ولي ما يدعين هوين تالك oo xagan ku soo dhaweeyno oo ka socda oo masabiyada haysta oo ka socda kililka shanaad oo markii koowaad ay ka dhacdo in helno haween caynkaasa waxaanu leenahay haweenka 12 hablood waan idin soo dhaweynaa waanu ku faraxsanay wixii waaya arag talo tusaale intaba waan idin haynaa waxaanu idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada garabkiina ayaanu taaganahay waxaad matalaysaan kuwaad ka timaadeen deegaankoogii waxaad matalaysaan annaga aad nala joogtaan waxaad sidataan magacii haweenka waxaad tihiin hablo haween goob kasta oo ay haweenku joogaanna waa mid ilaahay ayaa ina mideeyay inuu iskarab istaagana waa inuu iscaawinana inta karaankeena waan idin soo dhaweynayaa jamhuuriyaddeena Soomaaliland haweenkii hanka siyaasadda lahaa ee waqtigaasi sharaxna caqabadihii ka hor yimiday waxay ahayd dhinaca ragga way dumarku waxay lahaayeen dhaxdin iyo
qabiilkoodii bay kasoo kala jeedeen nin kastaana gabadh muu danaynaynin ee wuxuu danaynayay nin reerkooda ah ama kay u dhaxday ha noqoto ama kay dhashay ha noqoto mid kastaaba wuxuu danaynayay haweenkana ayna qabadaha iyagana haystay iyagoon siyaasadii aanu bislaanin social media waa halka kaliya la iskala la dagaalamo ama codkooda ay kor ugu qaadayaan iyagoon taasi u bislaanin baan odhan karaa ta saddexaad aan ku darayo haweenka iyagu sibood garaynin oon mar kastaba aan garab istaagin taasina waxay ka mid tahay qabadaha waaweyn insha Allah iminkana inay ka gudbi doonaan way badan yihiin laakiin waxaan u soo jeedinayaa haweenka kale inay ku sii darsadaan aad buu mahadsan tahay Kaafiya waxa la yidhi nin reer weyn iyo naag dumarka ka umulisay midna sidoo wax u arka waxba uma sheego horta haweenkan mid leeyahay iyagu way halowsan yihiin ana iga xanaaqi waa hablahaygii waayo soo ma waan tawdiid bay tidhaa soo wax kuma galaan kala wada ayagu soo kayn ma wada harsado anu meel cillaha gurigayga hoostiisa baan anigoo ragga isaga cadhoonaya ayuumaan iska fadhiistaa dabeetana waa anigii lahaa hayaan dheer haddii la galo hawdka roob ka da'o niman hayin adag lahayni habeenkii ma guuraye hangoolkii iyo gudumadii ay meheelan tihiin wanaagii caruurtooda markayna doonayaan dabinaday xidhaan qabyaalad la eeday iyo qolay xambaarsan yihiin markaasay u qaybiyeen qoyska iyo reer markaasaan saf dheer wada goloosiiga kugu burtiri markaasaan saamaleeyay suudidii ku dilay markay xildhibaanadu xaqooda ka buuxsadaan xafiiska markay galaan miyay xaawo raadiyaan xariiqay wali xaqiinu microphone-ku yaala caqabadihii ina soo wajahay kaltuuma ku soo wareejinaya siiba gobolada way ku sii kala badnaayeen caqabadaha waxaan odhan karaa ugu waaweyn ee qabsaday waxa kamid ahaa iyadoo dhaqanku markii hore na sii daayay oo ay xusbigii noo geeyeen haddana finalkii markii u dambeysay ee aanu tagnay goobtii gobolkii nalaga codayn lahaa goobaha qaarkood in lagu yiraahdo deegaanada markaanu tagno kaadharkii aanu anagu idinku codayn lahaynba odayadii baa naga urursaday oo xabad kaadhaba ma haysano oo ay noqdeen dadkii bulshadii meesha deganeed dad la haystayaal oo odayaal iska haystaan oo isaga taliyaano dhinacay u jiheeyaan ay qabtaan taasi carqabad bay nagu noqotay ta kale carqabada nagu noqotay waxay ahayd hablihii dowran waayay waxaa laga yaabaa intii naasoo hablooda halkaa fadhiya ee Somaliland inay faraku-tiris tahay inantaynan codays oo habluhu ay ragga u wada codaynayaan oo jin bay nagu jiraan ragga jecel moogta hablihii aanu 20 sano saaxiibka ahayn ee aanu bulshada isugu dhaweyn maalintay qadhaadhayd ee aragtay inuu waliba inay taagan tahay ayay dib kaaga faaganaysaa markaas ay odhanaysaa wallaahi walaalde maxay ahayd toon ka xumahay hebel baa dee laygu yiri codka hala siiyo xooga hala saaro inaga ba iskaga wanaagsaneen oo hebel oo intaas oo sanadood saaxiib ahayn isla soo jabnayo dumarna dee ku ahayo in aan ku ahayo wax badan maanta ku qaban karaa aanu inankaasi ku qabanayn marka waxaan doonayaa bal horta dumarkii in la fahansiiyo dumarku inay dumarka doortaan toon iyadu si gaar ah u taabatay xanuunko waa dadkii doorashada soo maray maamada masiin ee microphone-ka xagga kale soo wareejinaya اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والد السلام يا أنا واحد دليل يا هبلا شرحان أيان آد ودليل يا هبلها شرحان أم بعد عام أم بتشوجان أيقو يراليا هبلها بوليس أيقو تمركو سكوحدان تمركو أساس بيني ماله هو كله ما بين ما دام بوا كشابان تيجان كشابتين الله عدي مايو بوليستا adigoo sharaxnayn markaad u iman weydo eed ogaan weydo eed maqaalada iman weydo ee meelaha rag waaweyn uu ka soo baxay aad ogaanada ciidadiin codayn mayso dumaray dumarkiina ogaada ka warhaya taga majlisada maqaalada dumarka ee tobanka dumar ay fadhiyaan imaada haddaa doonaysaan cod waa laydi soo saarayaa majlisada dumarka imaada runtii dooda way kululaatay wali gacanta xaggan laga taagaya ma wareejin karay microphone-ka raali hal ahaadaya bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa yaasmiin axmed anugu kulleba qodobka dhimanaan isleeyahay anugu dhimeeyay baan ku darayaa waxayna mid aad u muhiim ahayd dhinaca dhaqaalaha
qofku waxaad arkaysay ragga ama saaxiibkii ahaado ama reerkooda ahaado ama ciduu doonaba ha ahaadee iyadoo dhinaca dhaqaalaha laga caawinayo ragga musharaxiinta ah maan arkayn gabadh lagu kabayo dhinaca dhaqaalaha markaa dhinaca dhaqaalaha laftiisu wuu wiiqay waxaa kaloo iyana aada u hooseysay marka dumarka laga hadlayo isku xidhnaantooda aad ba umahadsantihin qayb qaato caqabadihii ugu waaweynaa ee muxuu ahaaye hor istaagay dumarka jamhuuriyadda somalilan in ay ka soo wada muuqdaan golaha baarlamaanka iyo deegaanka runtiina ay ku wada waayeen ay kaga wada hadheen waxa ugu badan waxa weeyaan kow xagga shaacinta ama ka muuqashada baraha bulshada ayaa runtii dumarka aada ugu yarayd oo baraha bulshadu marka 2 iyo 3 laga reebo kumay badnayn inkastoonan anigu tartamaynin han siyaasadeedna aanu igu jirin laakiin 2 erey baan dumarka kula tarin lahaa aad baan ugu mahadnaqayaa hablaha golo deegaanka ka yimiday ee dhalinyarta ah ee aqoon-yahanka ah ee damcay inay hanka siyaasadda ka qayb galaan 2 midba waan dhaliilayaayo waxaad moodaa waxaa jirta horta bridge la dhaafaa jirta ama level la dhaafa baa jirta waynu ognahayo doorashadii 2 shakhsi baa keeneen lambarkii ugu yaabka badnaa Soomaaliland markaan eegno 2daa shakhsi ee keeneen horta 2 qof oo dhalinyaro bay haayeen tay ku keeneen waxay iska iibiyeen waa dhalinyartii dumarka waxaan anigu kula talin lahaa may jirin way jiraan baa laga yaabaa laakiin qaabkaynu u samaynayno campaign-ka ama qaabkaynu dadka u iibsanayno ayaad moodaa inay wax badan naga khaldanaayeen kaanaga ahaan doorkii siyaasadda kolka la eego dhinaca Soomaaliland waan kaga fiicanahay balse wali waxaan tabanaynaa inuu wax naga maqan yihiin still baan anagu ku fikiraynaa inaanu noqono madaxweynaha deegaanka iyo madaxweynaha dalka baa anagoo ka dumar ahaan annagoo haysanaa afayeenkii baarlamaanka oo isleenahay de madax meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto haddana weli wax baan tabanaynaa maxaa yeelay sida iyagu wax u barteen baanu baranay si iyagu wax u dhiganayeen baanu dhiganaynay weliba waqtiga iyagu dheeraa iyadoo taasi jirto caqabadihii aan leenahay dumar ahaan meel kastay joogaanba dumarku caqabadaha hortaagan aan odhan karnaa way hortaagan yihiin waa qabiil iyo dhaqan waayo gabadhu qabiil ninkeediina qabiil buu sheeganayaa reerkii qabiina waxay leeyihiin ninkeedii iyo reerkeedii wax u qaban anagu maxaan u heli karaa booska anaga ruux kale aan ku buuxsanayna caqabadaha haddaan soo noqdo micnaha dumarka hortaagan kow waa resourciga resource inugu filan maba haysan haddaan dumarnahay totalisba waa ta koobaad ta labaad waa culture-ka oo dhaqankeeniba wuxuu odhanayaa gabadhu waxba ma noqon kartaba saddexaadna waa faamilkeeni inooma ogolaanayaan inaan ama madaxweyne noqono ama ra'iisul wasaare noqono ama aan soo baxno anigu waxaan u arkaa 2 qodob inay muhiim yihiin waa dhaqaalaha iyo laga soo hadlay dhaqanka markaan u labun baan kaga dugan oo ku xoojinayaa 2 fikir ee aan isleeyahay caqabad bay ku yihiin dumarku meel kasta ay joogaan xataa annaga kuwa yagii aan soo saarnay qaabka lagu soo saaray xataa waan ka sheekayn doonaa awaamiir dawladeed baa lagu soo saaray kumay soo bixin ma oran karo kartidooda aqoontooda haweenima lagu soo saaro haween baa u codeeyay hadhow baan ka sheekayn doonaa kootogaan oo dawladdu amar ay dejisay bay ku soo baxeen horta laakiin 2 caqabadood ee anigu ka sheegayo aan jeclaan lahaa inaan uga faa'iideeyo walaaladay waa 2 caqabadood ee ah bisay siyaasadeed waxaad arkaysaa gabadhan oo musharaxad doonaysa ama dawlad deegaanka ha noqoto ama halkan ha noqoto idinkana waa idinla socon musharaxiintiina gabadhan oo kule musharaxad baanahay oon fikirkeedii iib geyn karayn oo lagaba yaabo 100 qof baynayna ka hor hadli karayn oo codkaaga kar u qaad kuma maqaladaa la hayaa at least codkeediiba ma deeqsiin karto sideebay markaa isku sharaxi hadhowna waxa la odhanayaa dumarkii wax loo diiday looma diidin iyadaa dee fikirkeedii iib geyn kari weyday waa inaad barnaamij siyaasadeedkaaga iib geyn karto qancin karto dadka waa inaad haddii kale dumarkana ha ceebeyn weeye ma fahamtay meel kale aad inoogu fiican tahay business iyo waxyaabo caqabada labaad abaabul adag ma sameeyaan haweenkeenu ragga inaga abaabul badan haweenayda ragga ka abaabul badan waa wax la isku raacay dee 2 gabdhood ee 2 wiilay gabadhu sheegaysay barkhad iyo cabdikariin abaabulkay iyo waqtigay geliyeen even waxay samaysteen campaign designer qof campaign-kooda u design gareeya qof campaign-kooda u qaabilsan gabadha odhanaysa head of campaign baan intaan samaystay yaa meel walba cid baa ii joogtay wakiilaa ii joogay gabadha odhanaysa ma jirtaa adiga sorry aye marka laakiin nacam kaligeed waxba ma sheegaysay kuma badna ta saddexaad dumarku way isxiniyaan xaqiiq marka laga hadlo runta inaan ka gabanay haddaan rabno inaan wax kala faa'iidno dumarku way isxiniyaan iyaga dhexdooda
dumarnimo wax la yidhaahdo inaga maaragtay uguma ololayno. bismillaahi raxmaani raxiim iminkan waxaan kusoo dhaweyn doonaa microfonka ama panel discussionka Marwo Cabdi oo ah suldaamada soo dhawo Marwo. magacaygu waa Marwo Cabdi Cumar waxaan ka socdaa golaha nabadda iyo midnimada dowladda deegaanka Soomaalida. sida la sheegay social media ga aad haweenku ma isticmaalaan waxaasoo idin waxay ka soo baxaysaa qorshe la'aan blind in la samaysto marka aad wax rabto waa in qofku vision leeyahay visionkaaga in lagu doorto kaliya maaha waxa weeye guul iyo guul darro labadaba diyaar baad u tahay laakiin in aad samayso qorshe aad ku helayso guushaada aad ku gaarayso qorshe la'aan waa ina qabsataa iska warqab la'aan network wax la yiraahdo in dumarku ayna iska warqabin hadda waxaa dhacda codadka xataa dumarku markay saas oo kale u dhacdo waa la isugu ridaa waa la iskugu talasulaa waa la wada ololeystaa ama muxaafid ah oo mucaarad ah xataa kulmiya laftigooda iyagoo wada jira waxaa laga yaabaa gabarba inay goonideeda u ololeysanaysa laakiin iyagu rag way wada ololeysanayeen yacnaha fikir ahaan way qaybsanayeen caqabadaheena waxaa ka mid ah horta siyaasad iyo dhaqaalo ma kala la'a waxa weeye siyaasad iyo dhaqaalo waa laba shay oo walaalo ah dhaqaaluhu marka laftigiisa inaad haysato maaha isaga laftigiisa meeshuu ku baxay inaad taqaano weeyaan waxaa jira dhaqaalo badan oo kaa baxaya iyo dhaqaalo yaroo kooban waxaa laga yaabaa waddo aad rabtay inaad meel u martay inaad waddo dheer usoo martaa laga yaaba waxaa laga yaabaa 100 qof inaad adigu kaambeyn garaysatood lacag siiso laakiin ay ka habboon tahay 3 qof oo kugu filaada dadka waxaa la isticmaalaa dhagahooda iyo indhahooda iyo codkooda la qaato oo 10 qof codkiisa leh in la helaa laga yaabaa marka waxaa laga yaabaa inaad qoys ahaan u raacdo 20 qof oo aan waxba ku soo gudbin karno asal madoorsha iyada lafteeda waa istiraatiijiyad siyaasadeed weeyaan in la isticmaalo way jireen waxyaabaanu baranayno horta hablaha iyaga annaga caqabada koowaad waxay noqotay hablaha iyagii oo isdhigtay oo aan xishoonaynay oo aan islahayn kootadaas la idin hirgelin oo aan inan waliba is leedahay insha Allah kootada bal horta adigu inaad marka kuwa selected ka noqoto aanu ku fikiraynay especially anoo kala qurba joog baan ahay xisbiyada qaranka ee qurba joog ayaan kamid ahaa doodo aad u fara badan baanu ka qabanay international ay dad kale oo ajnabi nagala soo qayb galaan halkan waa laga qaban jiray nagaad iyo warisi hablo way wada qaban jireen annagoo aan waxba isula hadhin in aanu kooto helo ayaa laxdadii u dambeysay la yiri koota ma jirto markii la yiri koota ma jirto xafiiska nagaad baan maalintii fadhinay warisna way joogtay iyo aniga iyo dhowr hablood oo kale iyo hablaha nagaad waan cadhoodo anigu waxaan idhnaa go'aan baynu gaaraynaa women political forum aynu samaysano qalcadna aynu kiraysano dabadeedna baarlaman gaaro bajada dunyada ka raadsanayno noqonayna oo isa soo saara oo yiraahdo waana laga saaray siyaasadii laakiin waxa weeyaan qaranka stakeholders baan nahay waan shaqaysanaynaa halkaasaynu fadhiisanaynaa والله ما أنت ولا عرسنا إن اليوم يربي كل فتاي وحويان وحنو قان صن سيد دقة هبلها يجي وحنو هذا استدي لا تنكا وهيروز بمحسن تهاي إن فاطمة أمران يمكن نحن كوريتشين دونا سهرة عبدي إن سودا وسهرة عد آن كوتا هدانا للسنين ما صوب بحكران هوينكم سببت محاكيني كوتا إني سيان يقول لقص هلين أيو قبيل degmo hadda waxa jirta ee deegaankeena Soomaalida 93 degmo weeyaan 93 degmo walba waxa la yiri laba xubnood hal laga soo sharaxo labadii xubnood hal gabar inay noqoto halna wiil inuu noqdo waa sharci la saaray oo loo siiyay weeyaan marka degmooyinka ay qaar intay diideen ee ragga labadaba rag intay ka dhigeen bay soo direen waa lagu soo celiyay xafiiska doorashada ilaa heer federaalka maadaama uu soconayo waxa weeyaan xisbiga waxa ka dhisan yahay heer federaalka horta heer federaalku oo xisbiyada deegaanada oo dhan hal beel bay isku imanayaan xisbiyada federaalka waxa u qorshaysanaa 50% dhinaca siyaasadda aan siino haweenka way ka go'an tahay inay siiyaan 50% way ku guuleysteen 50% inay helaan iyagu deegaankii walba wuxuu qaatay maya annaga maadaama qabiilkii iyo culayskiina saarnaa 150 maanta haween ma soo saari karno aan ku dayno 30 waxaan ahayn doorkii hore ee dawladii hore waxaan ahayn 38.8 baan ahay daraasaadka lagu sameeyay taas maxay noqonaysaa laakiin inta ugu badan ee hadda waxay u qaateen dawladdu inay noqonayso 30% baan kareynaa doorka doorashada dambe hadday noqoto 50% ha gaara laakiin hadda shacabkiisaan uga dhaadhicinayno qabiilkiisaan uga dhaadhicinayno
maadaama hal mar kumana soo boodeenna marka ugu horeyso aan u dajino qabiilkii iyo wixii marka xukuumadda waxa weeyaan ururo fara badan baa jira markasta uu la xaajooda madaxweynuhu haween buu isku ururiyaa dhalinyaradu isku keenaa uu la doodaa marka waxa su'aasha la weydiinayay intee baan ku leenahay waxaan weydiisanay annaga madaxweyne kootaha kuma lihin annaga qabiil kaan dhalanayna nama tirsanayo kaan u dhaxnayna nama tirsanayo qabiil haween ahaan nagu sii inta ugu badan qabiil haween ahaan inaan ku helnaan jecelnahay kootaha waxaana looga dhigay koota ahaan haweenku 30% ha ka soo baxaan waxa laga soo sheekeeyay waxyaalo badan oo dumarka ka hor yimid dhammaantood kamay wada hor iman markaan anigu ku noqdo taydii allahumma salli ala maxamed horta beesha aan ka dhashay iyo beesha aan u dhaxay isku mid bay ahayd 6 sano ka hor 2016 baa la shaaciyay cidna laygama daba keenin sidii baan ku ahaa musharax reer oo karaamadiisa iyo xushmadiisa mudan waa marka labaad macallin wasaaradeed baan ahaa oo waxaan ku jiray saraakiisha wasaaradda waxbarashada wasaaradoo dhan ayaa diyaari ahayd oo mid walba wixii waris kaga soo hagaagay halkiisa ayuu ku fuliyay saxaafadda asxaab badan baan ku lahaa oo iyaga yaacayeen ciyaartooy baan ahaa xataa ciyaartooygu يعني وي أكتوجين وحولبا وحنا ها قبل كلية سومالان مركان نسكن نميت أنا أساسياشي نجات كميدا دي كوتا تري محين كوتا فلين هذا وحلين نورن دونا مركا وحلان صحينا يو كوتا لوجوسا دورتو وكون بار بالس حمبار بكتميت أنا إسكاي مقعيان كتر تمايا كان تبانها كجرا يدويني دو مركا سيدي أنا كنت شدينا ده ويد عادي حاجة ميديها waxba ku noqon maayo oo life bayn badan lagu daawadaa doodihii ilaa imikadan oo aad markaan aan waxba helin marka anigu mid baan aad iyo aad ugu faraxsanahay hablaha jaarkayga noo yimid oo aad noola qaybsaday noona cadeeyay inaanay cod ku imid ay ka yimaadeen dawladda ay ku yimaadeen boogahana inaynu dhaynaynu u baahannahay marka ayaynu ka warwareegin dhaymaha waynu u baahannahay dawadeena ku jirta inagoo dhan baa u baahan anigu runtii haddii aan maaragtay dhinaca Somaliland iyo dhinaca Ethiopia it is too very difficult weeye aad bay u adag tahay waayo waa wadan dawladiisu muddo dheer jirtay ictiraafkoodii haysta maxay tahay dawladoodii wixii ay soo goysay deegaanadeeda ku dhaqayso inagu waa ka duwannahay Somaliland baa la yiraahdaa اعتراف ما هيسنو أو عالم كما هيسنو هرتو وينو كلا دوانه فكر كنا كلا دوانانيا شقدنا كلا دوانانيسا دورشدنا كلا دوانانيسا لما أنت وينو كلا دوانه هرتو وينو مسكحة قلنا إنه كلا دوانه رتي أنا جا واحد سمينا إن إيرس كرب دقنو ميلا قار كيد وينو يسودونه وح أنا جا دران كي جسوتشي تي أو عاد ما أعرف مسكحة إذا إيه كاناي ما أعرف تي قضب أي قبض السلطان الداهي ما أنت إنك قاعد قلنا أي ما أعرف أي كذا واجد سو واحد تري ذاتك الشرح يا إنتوا هذا بدني وحقرش ما وطن نلاش قرشه هو كبد إلا ما أنت ما أعرف تيجي بربارتي السكول كبحدي الجامعات كبحدي يعني وين القرش السدته نلاش قرش الآن ما شقين يسوع ميريها يدا ولا جم يدرسنا كنتي غير سومالان ده تصفي عن ميريا واستعمالنا وانو لهين ده أنصفي عنه معلنا وانو لهين وايا وحنا دونينا إنه أجانا قضبة مهمة قضبة مهمة عينه نكسرنا وحكمنا حاجة دقنك إذن كدولة بقى إذن صوت دورتي دولة بقى كوتا إذن حداي دولة ديني ما ركتي اسمها ملكي سومالي ده يهر فدرال بقى إذن حداي أنا قتام هايسنو أنا قد دستور كسومال لا واحد كتيرة محيتين قف كست أو موادنا وإسشرح كرا وحوي عد سمان آياتكو إيمانيسا dariiqyo badan ay dumarku siyaasadda ka qayb gali karaan inaynu ragga sharaxan ee musharaxiinta u mushxaradno soo dhaweyno geel u qallo qiiqa iyo xaabada iyo dusuudda iyo leynagaga tago waa political participation waad ka qayb gashay gabadhii haddaad tahay siyaasadda waad ka qayb gashay inaad qaaraan ururiso inaad qol karayso lagu shiro inaad dadka isugu yeedho inaad u ololeyso waa participation waxaasoo dhan oo dumarkeena inta badan ay qabtaan oo si fiican isu wada fahansanahay
waa political participation ay dumarku ku jiraan laakiin markay noqoto women's meaningful political participation meaningful kelmadaas macnay samaynaysaa underline weeye ka qaybgal macna ku fadhiya oo gabadhi ka qayb gasho siyaasad ma aha inay cunto kariso ma aha inay mushxarado ma aha inay dumaashigeedii walaalkeedu ololeyso waa inay u ololeyso nafteedu sidii ay dumarkan wax ugu qaban horta overall ay noqoto countryga ama muxuu ahaayey regionka laakiin marka dambe ay noqoto gabadh u fadhida oo u ololeynaysa oo hankeeda siyaasadeed yahay meaningful markaad uga qayb qaadanayso waa markaad halka decisionka lagu samaynayo go-aanka lagu gaadhayo ay gabdhuhu ku jiraan oy go-aanka gaari karaan waayo dhibaatada ay muxuu ahaaye ay hadliye qabto iyo tasaari qabto anigu waan dareemayaa laakiin ninkani ma dareemayo nin kalena ma dareemayo dumarku waa same interest waa isku dan wixii tan gubaya tan uu gubaya wixii tan u farxadii tan kale waa u farxad marka haddii miiskiiba laga waayo oo sharci dejintii laga waayo oo fulintii laga waayo waxa weeyaan wax meaningful participation la yidhaha ma jirayo anigu hablaha laba mid iskaga mid baanu ahayn midna hablaha ku kala mid baanu ahayn anigu waxaan ahaa doorashadaydu waxay ahayd sida cabdikariin axmed mooge oo kale qabyaaladiid reer uma sharaxnayn gobol baan u sharaxnaa togdheer la yidhaa gobolka run ahaan deegaan kumaan ahayn aniga iyo caruurtaydu toona taasi waa guul aan gaadhay waxaan ogaaday anigu maan dhicin baan isleeyahay maanta haddii aan hadhayna maan dhicin waxaan ogaaday gobolkaygu kalgacayl intuu ii qabaa waxaan ogaaday kalsooni miyaad soo bixi kartaa sideed u soo bixi kartaa waxaan ogaaday gobolka togdheer haween iyo ragba aniga waa la ii coleeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa gobolkaygii waan ku faanayaa waan ku dhashay midda kale waxaan kaloon ogaaday inuu gobolka togdheer qabyaaladda waxa la yidhaa uu ka madax bannaan yahay uu inannimo aniga inan baanu ahaa gobolka inan baanu ahaa deegaankiisii maan ahayn reer abtigay ma deganayn reerkaan u dhaxay ma deganayn anuunbaa ku dhashay haddana maadaama uu inannimay wax igu siiyeen oo aanay qabiil ii eegin waa gobol aad iyo aad u caafimaad qaba waana gobol wanaagsan waanan u hambalyaynayaa dadkii ii coleeyey iyo gobolkayga ta kale waxaan jabiyey fikradda ah reerkiina mooyaane reer kale kuuma codaynayaan aniga odayaasha keen markii la igu yidhi odayaasha gobolka togdheer oo wada socdaan keenay 4 beelood ee togdheer degta cuqaashooda ayaa nagaad u yimi oo ay doortay wixii baaq guuda waa halkeeda taas oo waa la noodgarayn doonaa qof walba wuxuu ku hadlay wixii muhiima intay noodgareeyaan iyaga ay noo jeedin doonaa laakiin anigu shakhsiyanka raxma ahaan waxaan xalka u arko waa la iga wen yahay waa la iga waayaragsan yahay laakiin waxaan xalka u arko anigu waa 2 qodob baan leeyahay imika intii aan qadada ku jirnay baan haweenkana warwareysanayay xalkaas aan anagu u aragno kaligeena ma aha way igala midaysan yihiin dadkan waftiga ah ee martida idin ah marka anagu xalkaan u aragno baan rabaa inaan halkan uga dirno xukuumadda ka talisa Somaliland xalkaas haddii ay qaataan waxaan aaminsanahay dumarkan inay soo baxayaan qadarta Ilaahay ka soko xalka anagu isla aragnay waxa weeyaan looma baahna dastuur in dib loo furo hadda yar dhageysta dumarka in empowerment la siiyo baa loo baahan yahay empowerment-ga see loo siinaya tusaale waxa la ii sheegay hadda xerosa dastuurka Somaliland wuxuu dhigayaa waa saad u faantaan halkan ku socda dastuurka Somaliland wuxuu dhigayaa qof walba oo muwaadina inan iyo inanba inay u siman yihiin inay waxna doortaan lana dooran karo mar hadduu dastuurkii Somaliland sidaa yiri wax gooniyo gabadha dastuurka uu ugu hiilinayo leeyahay gabadha inta hal la siiyo ma jira baa la yiri maadaama una jirin dastuur gooniyo leeydiima sameeyay dastuurkana leeydiima furayo waxaad sugaysaan goorta baarlamaanka inta arinta la horgeeyo leeydi ansixiyo waxyaabahaas idin sugaysaan baa taagan
soo sama waan isla fahnay laakiin waxaan rabaa inaan baaq diro annagaba dastuurkaygu sida kiinu dhigayo unbuu dhigayaa horta dastuurka federaalka Itoobiya iyo dastuurka kilalka ee dowlad deegaanku waxay dhigayaan qofka muwaadinka wuuna isharixi karaa wuuna la dooran karaa gabadhna inta la siiyo male laakiin kootaan loo sameeyay kootada cidii noo sameysay qaabkan loogu sameeyay baan rabaa ilaa experience sharing baa laynoo keenay inay message noqoto waxa weeyaan kootada federaalka Itoobiya ama dowladdan ka tirsanaya Itoobiya haweenka horta 50% boqolkiiba divide by 2 bay yiraahdeen 50 dumarka 50 ragga waa Itoobiyada kore Highlanderiska qowmiyadaha kale laakiin annaga Soomaaliyan 50 by 50 maadaama la og yahay inaan la yeelayn 30 baan annaga kila lahaan laga dhigay xisbigayga BB iyo xukuumadda waxay isla qaateen 30% in laga dhigo xisbiyadii mucaaradkuna iyaguna sidoo kale 30 haddaba 30ku waa sidee ma 30 baa idinku talagalay dooradoo gal tartanka abaa maya waa 30 la yiri tusaale degmada Maxamed Mooge haday 5 xildhibaan uga sharaxan yihiin kulmiye waa inuu kulmiye siyaasadiisa ka dhiga 5 waa inay laba dumar noqoto waa kooto go'an waa inuu sidaas 30% sidaas ku imanaya waayo annaga degmo walba 63 degmo ayay goob doorashooyinku ka dhacayeen 63 degmo waxaa qasab lagaga dhigay ama mucaarad qofka ka sharaxnaa ama xisbiye 5 xubnood ee degmada ka soo baxaya inay midig gabadh noqoto dabeeto qaar baa laga yaabaa inay 5 rag ka soo dhigayeen markii ugu horeysay la fikirku hal mar bood hirgalay guddiga doorashooyinka ama qolada u taqaanaan commissionka doorashooyinka yaa markuu saa u eego oranayay degmo hebel ama xisbiga marka loo soo gudbiyay degmo hebel gabadh kuma jirtaa ku celiya waa in structure-ku eeg from ka soo bilow commissionka doorashooyinka waa xalka ka soo bilow commissionka doorashooyinka xukuumadda talada hayse ugu horeeyay madaxweyne Muuse Biixi xisbiyada mucaaradka dhammaan waa in laga sinaado kootada gabdhaha oo go'an oo meel la dhigo iyo in practically loo hirgeliyo waa xalka koobaad marka halkaas uma baahna dastuur in la furo iyo in xeer la idin sameeyo golo baarlamaan la horgeeyo waxa doesn't need waxay u baahan tahay guddiga fulinta ee dawladda madaxweyne Muuse oo ka fadhiista xisbiyada mucaaradka ka fadhiista guddiga doorashooyinka iyaguna annaguna ma aqbalayno haddaan gabdhaha maxay yihiin affirmative action haddaan la sameynin ama empowerment inta baa taasi wax weeyaan waa xalka koobaad xalka labaad isbeysyadan oo kale la badiyo xalka labaad in ku soo koobayo waayo bislaanshay keenaysaa in wax la kala faa'iido keenaysaa annagaba ka haweenkii sidii la isu riixayay sidan yeela halkan yeela aan dhaqaale ku caawino ma ahan sawirradooda gidaar ku dhajina ma ahan sidan yeelo ilaahay waa kan nagu guuleeyay spacekii sidan oo kale aha ma aha xisbi spacekii ay ku midaysnaayeen ONLF iyo BB iyo kulli ay kasma ku midaysay ay kasma isku keentay baa waxaa ka soo dhax baxay laba gabdhood oo full ministers wasiirro buuxa iyo gabadh wasiir ku xigeenah iyo gabadh maareeyo wakaaladeeda spacekii way ka soo dhax baxeen iyo xildhibaano sidoo kale marka waxaan rabnaa aniga aan xal u arkaa iyadana in spacekan oo kale la badiyo oo sidan oo kale mar walba dialogue aad samaysataan iyo foramyo ugu dambeyn aanu fariinta aan ama codsigan codsanayo recommendationkayga waxa weeyaan in la sameeyo haddii ay suurtagal tahay dallad midaynaysa haweenka Soomaalida meel walba joogaan oo la yiraahdo dallada midnimada haweenka Soomaaliyeed jigjiga branch ku yeelato Hargeysa ku yeelato meel walba oo wada xiriir yeelano oo Hargeysa joogtay jigjiga joogtaba saan u soo saari lahayn iyo ta Djibouti joogta Muqdisho joogta Mareykan joogta ay fundraising noo sameyn karaan in soo saari karaan waxyaabo fara badan dallad guud baynu u baahanahay wadan walbana sharci buu leeyahay dib male annagoo kale xeeroosaad baa jira ururadu qaab loo sharciyeey jira waan ka sharciyeyn karaa waana sameyn karaa annagu idinkuna sidaa ay la mid dallad guud oo la yiraahdo bal ha u noqoto qoladan Sansafe barnaamijkan soo qabatay fruitiskii laga dhaxlay shirkan inay ka mid noqotay dallada midnimada haweenka Soomaaliyeed qolooyinkeenii Soomaaliland iska sharaxay xildhibaanadii iyaga sababtan ugu wacnayd dhiciddo waxa ka koowaha iyagoo ahayd waqti dambe inuu qof waliba shaqadii uu bilaabay sidii ay u sugayeen kootada dumarku
oo in badan welibana dumar badan oo aan sharaxnaynin oo aan isa soo sharaxin sidii ay kootooyinka u sugayeen ayaa markii dambe ee kootadii la waayay waxay soo sharaxay in yar oo kooban intaa yar ee kooban may helin waqti badan oo ay ku kasbadaan yacni in mujtamacii taasoo ahayd in dadkani dad waqti badan soo sharaxnayo raggani soo socday ay ahaayeen iyo dhaqaale la'aanta marka kolley wuxuu maan ina leeyahay sida walaalaheen kilalka shanaad inaynu noqono dad isku duuban waayo xisbiyaynu u kala fadhinaa qabiilana waynu u kala fadhinaa sababta dabadeedna dumarkii aanay ku heshiinayn ama aanay u noqonahayn dad iyagu mid kaliya ah waxaynu u kala fadhinaa xisbiyo runtana inaynu sheegnaa wanaagsan qof waliba xisbigu ka jago wuxuu leeyahay anigu xisbigaygii baanahay anna xisbi hebel baanahay anna reer hebel baanahay sababta markaa ina ridaysaa waxa weeyaan ilaa aynu taa bedelo mooyaane intaynu inagu xisbi hebel lahay dee kolley horumar ma gaadhayno haweenkuna xisbiyaday member ka yihiin haween kale oo xisbi kale u shaqaynayaana ma jiraan hal mid unbaan laakiin kusoo bixi karnaa si aniga fikirkayga ila tahay xisbigu qofku ka mid ka yahay anu waxaan ka mid ahay xisbiga xukuumadda xisbiga kulmiye ayaan ka mid ahay at least waxaan isku waalin karnaa haweenka xisbigayga ka sharaxan inaan u kaambeyn gareeyo oon idhaahdo haweenka hala doorto xisbiga kulmiye laakiin ta dowlad deegaanka iyo teenu isku mid ma noqon karto sababta oo ah dee haweenka dowlad deegaanka tiro go-an doorasho dhib yar ayay ahayd haweenkan ayaan la dhaliilin doorashada galay haweenka qaar hadday doorashadoodu dhib yarayd haween waxaa jiray ragga ka kaambeyn badnaa waxaa hadhay baa la yidhaahaa maxaa inuu qofku iska hadlo maaha anigu musharaxad baan ahaa baarlamaanka u sharxan gobolka saaxil ilaa 2016 campaign baan ku jiray laakiin haddaynu iska dhigno inaynu inagu nahay saliim oynu eedda ragga u xambaarino ma aha wax saxa lambarka koowaad eedu dumarka Soomaaliland bay saaran tahay 1 waxa weeyaan runta haddayna sheegno waxba hagaagi maayaan horta xusbi anigu ma aaminsan xusbi baan ka tirsanahay xogayaa arrimaha bulshada ayaan ahay ucud waxaan aaminsanahay dumarku inaanay xusbi isugu codayne dumarna ay isugu codeeyaan ragina riixi kara haddaynu inagu mid nahay wax la shan nin oo shan shaqayb la shan shaqo gooda shan aan shan shaqayb lahayna shan shaqo gooda haddaynu mid nahay waxaan aaminsanahay inaanu baarlamaanka intagi karin laakiin inaga problemku ina yaala inantaas hadalkay tilmeen waan sibooraya eedo aad baad u mahadsan tahay wax lagu qaato buu ahaa sida aad sheegtay haddaanu samayno iminka dastuurku markii ayna diideen la yidhaaheen koota ma jirto haddaanu madaxtooyada isartubi lahayn oo odhan lahayn way jiraysaa oo mudaharaadi lahayn nalama dhaqaajin annaga way problem fadhigan aan fadhin laftirkiisa waxaan ka aragnay haweenka laftirkooda iyo kaaris ogolaynba goorma anaku xaqaan leenahay ama xuquuqda naga maqan anaku aan raadsan karnaa aan ogolaano marka hore markaan isra ogolaano aan idhaahno taasa naga maqan deen aan qaybino waa sax laakiin anakoon waxba haysanin in aan rag u ololayno aan idhaahno hebel baa reerkayga ah ama kan baa xisbigayga ah sheekh xisbiga ha ahaado waa sax ama reerkiina ha ahaado laakiin meesha waxa ka maqan point ah kii dumarka marka cidda doonta ha ahaato xisbiga doonta ka soo jeedo meesha doonta ka timaado almost qasab waxaan u baahanahay inaan hal point fahano xubin aan yeelano marka kelmadu baan odhanayaa waxaan la hadlayaa qolooyinka xisbiyada waxaan u malaynayaa dumarka madasha ku sugan marka laga reebo martida Itoobiya inooga timi qof kasta xisbi buu ku fadhiyaa marka laga reebo dalada Soonsaf iyo laba hablood halka fadhiya marka kulli way isku wada aragtay qof waliba markuu xisbi u hadlay kiisu dhiibane laakiin aanu midun baa leeyahay hablaha xisbiyada waxaan leeyahay horta xisbiyada durbaanka u garaacaysan saddexdee marka hore kuraasada u fadhidaan marka hore horta idinku ka soo dhamaysto qoondo oo idinka wax ka sita xisbiyadiina dadka kalena baryaad ba